waxa kale oo mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo culays weyn ku dhacay iyaga iyo shaqaalahooda iyagana waynu mahadnaqaynaa hawl aan qiyaas karin baa ku dhacay iyo barasho waa iyagana aad iyo aad baynu waxaynu u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka Soomaaliya oo runtii inoo suurtageliyay dal jira xuduudda daafaca gudihiisa kala nabad gala tartanka inta la galana iyaga oo naftooda horeeyaala oo xaasaskoodii carruurtooda aan danayn ee qaranka ka horeysiya iyagana ugu mahadnaqaynaa waxaanu mahadnaqaynaa saaxiibada Soomaaliya ee caalamiga ah ee dawladda leh ee haddii la urur leh dhammaantood taageerada ay siiyeen ee aqoon leh ee waana leh ee dhaqaale lehna waynu ugu mahadnaqaynaa ugu dambeyntii waxaynu u mahadnaqaynaa bahda warbaahinta Soomaaliland saxaafadda oo intii oran socday iyo intii ka dambeysayba mar walba dhinaca qarannimada iyo danta guud ka ilaalinayay oo la hawl gala shacbiga warar sugan iyo qarannimo ilaalinayana waa mahadnaqaynaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa sababta xisbi oo cod iyo wadan oo loo xisbi muddo kara madaxdooda iyo taageerayaashooda ay yihiin waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiga kulmiye oo ah xisbigii isoo sharaxay gudihiisa ila hawl galay guusha dhigay maanta waxaan leeyahay xisbi gaar ah ma guuleysay saddex xisbi guuleystay Soomaaliland ba guuleystay maanta ma nihin annaga iyo idinka waxaynu nahay innaga oo Soomaaliland wax kasta oo Soomaaliland ka tirsato qardoofa bilad buu yimaadaa qoyskaas khilaaf aabiyeyna hooyo iyo ina laba baa cimshada wada xisbiyada danta inta laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda Faysal iyo ku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisuba inay u tartamayeen Soomaaliland sidan ay tahay ka wanaagsan waxa qulay wadana ahayd waliba war ana hawshaas aan hayabtayda hore loogu maraya walaaltinimada dalisba lagu sameeyay xumaan iyo xisb ummadda kala culisiyo midna u meenaagay saxaafaddu saas dhexaaqay tahay maanta intii bay dhahay waa qasab kubadda yar aragteen haddii qola laga badiyo yar qawmiyota waa binaadmi waa waxayna u abuuray haddii xisbi wax diiday yahay waa doonaynaa walaaltinimadiisa Soomaaliland laantood hore u marmayso haddii kala tirsan cadowgeena badanaya walaalkeen kii wax tirsanayaba baaqnabadeed gacan walaaltinimo iyo waxaynu soo dhubisay jiraan dhameysano ayaynu u baaqaynaa oo ugu diyaar garoobeyna waxaan ku soo koobayaa Soomaaliland maanta intay wada leedahay ee heshiiska ku tahay ayaa ka badan wax isku sheegay Soomaaliland waxay leedahay cadow qura oo dhammaanteen inala way cadow Soomaaliland waxay horumar kartaa marka ay soo baadin aniga oo maanta ummaddu karaameysay oo cod ku badaysiisay maaha inaan kaliya guuleystay waxay la guuleystay murashaxii wadani iyo kii cid labadaba waxaan ka codsanayaa si kalaamo leh oo wadaninimo ah inaanu soo maadno dalka oo maamulo qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo waxaan soo koobayaa oo ugu dambaysiinayaa dalkeena horumarkiisa iyo waxay noo baran midnimadiisa dhexdeena kubadda wada ciyaaro حرقنا نكتي